kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeeni maanta qodobada aan ku maqli doontaan ama aad ku daawo doontaan barnaamijkeena waxa ka mid noqon doona dagaal xoogan oo ka socdo ee deegaanka Cali Xaaji ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo ciidamadii ugu badnaa ay ku qubaysa deegaanka Cali Xaaji ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca kale ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan degmada Cadal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kulamo gaar waxa uu la qaadanaya macawsleyda ee beelaha Xawaadle iyo sidoo kale beesha Abgaal Cismaan oo ka dhashay madaxweynaha xali ilaa isaaka waxa uu madaxweynaha la kulmaya sidoo kalena kulamo uu la yeeshtay macawsleydaasi iyo deel dhaqameedka beelaha Sayhidago Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe talo waxa ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya haatan ku soo beegay inuu la hadlo odayaal dhaqameed ama macawsley dhinaca kalena ee duqeymo baan ayaa wali ka socdo gobolka Jubbada Dhexe magaalada Jilib iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose ee dagaalkii ururka Al-Shabaab lagu jiray dawladda laba laabta iyo duqeymo joogto ah ka geysanaysa diyaaradaha caawiya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika iyo ciidamada qaranka Soomaaliya intaba ay si isdaba jooga dagaalkii ururka Al-Shabaab lagu jiray ay u laba jibaareen iyadoo la soo tabinaya qasaaro dhimasho iyo dhaawac bale hadba mar ay ka sii dareyso dagaalkaas ee ururka Al-Shabaab dawladda ku qaadayso dhinaca kalena diyaaradii ku burburtay duleedka magaalada Muqdisho ee deegaanka Al-Jazeera ku burburtay hoola soo tabin gabi ahaanba dadkii saarnaa ay ku dhinteen hamaba ay gabi ahaanba ku naf waayeen dadkii saarnaa diyaaradaasi waxaan idin hayaa xogta dadkaasi ay u dhasheen iyo sidoo kale diyaaradda shilka waxa sababay in ay ku dhintaan dad intaasi gaaray amaba ay badbaadi waayaan diyaaraddaasi amaba la badbaadin waayay cilada ku timaad ugu horeyn hadii ay tahay markii ugu horeysay ay soo booqatay janaalka Amiir Suleymaan fadlan waxa ka codsanayna muuqaalka like iyo share gareysa gaarsii saaxiibada janaalka aad subscribe ku heenay inaad subscribe ku camaamadid aan ka codsanay aad iyo aad ayaan mar kale umahadsantahay waxaad daawadayaal deegaanka Cali Xaaji ee gobolka Shabeellaha Dhexe haya dagaal xoogan waxa uu ku dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab iyadoo dawladda halkaasi ay ku sii qubaysa ciidamadii ugu badnaa halkaasi muuqaalkan aad arkaysaan waa ciidamadii ugu badnaa ee dawladda federaalka Soomaaliya ay geyso deegaanka Cali Xaaji ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo halkaasi lagu dagaalamay deegaanka Cali Xaaji waxa qaasatan gooni u daga madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Jufida Hoose uu ka dhashay hase ahaatee waxa inkii uu dambeeyay iyo deegaankaasi ku kala hoos yimaado sida Biicade iyo Ceel Cali Axmed ba waxa dagaalba aan ku soo qaadayay ururka Al-Shabaab iyagoo markii dambana la wareegeen goobtaasi muddo dhowr maalmood ku sugnaa iyaga iskoodna ay ugu baxeen ee deegaanadaasi Ceel Cali Axmed iyo sidoo kale Biicade Al-Shabaab ayaa marka ay deegaanadaasi ka baxayeen waxa ay dagaaladan ogaayeen in dagaalada ay dawladda ku soo qaadaysay ciidamadan ugu badan ay ka warhaayeen iyagoo dadka deegaanka goob banaana iskugu keenay una sheegay in ay gabi ahaanba ka baxayaan deegaanadaasi sidoo kalena ay u baxayaan xeelad dagaal oo ay ka damacsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya militariga ay ku soo daabulaysa gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ku sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo mudooyinkii ugu dambeeyay halkaas saldhig ka dhigtay isagoo ku sugan haatan degmada Cadal madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu soo maray deegaanada Hiiraan iyo sidoo kale degmada Aadan Yabaal isla gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca kalena ee agaasimihii hore hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka hadlay dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab ee dawladda laba jibaartay iyo sidoo kale safarka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku tagay degmada Cadal iyo sidoo kale Hiiraan ayaa sheegay in madaxweynaha uu sidoo kale xoog saaray oo kaliya gobolada uu ka soo jeedo oo ula jeedo in Hiiraan oo iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe waxa uu madaxweynaha ugu baaqay in taliyii hore NISA Fahad Yaasiin in madaxweynaha uu eego sidoo kale gobolada Shabeellada Hoose Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo sidoo kale Puntland isagoo sheegay in dagaaladii lagula jiray Al-Miskaad ay kula jirtay Puntland aan ka geysanin wax gacan oo hadda muuqdo marka laga tagay in madaxweynaha uu sida bogaadiye ama masaajidka isagoo ku jiro afka ka sheegay in dagaal jihaad ay ku jirto Puntland balse ay taageeradii ay ka mugnaayeen maadaama urur Soomaaliyeed ay yihiin ay ka helin sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa kamid ah ayuu yiri waxa gacan bidxeeyay ururka Al-Shabaab dagaalankooda gacan laga siinin Jubbaland ayaa kamid ah madaxweynaha ayuu sheegay in uu si kale u janjeero gabi ahaanba labadan gobol ee Hirshabeelle kaliya uu xoog saarayo ayna ku soo xigta gobolka Galgaduud oo ku xaglinaya in madaxweynaha uu ka soo jeedo dhinaca iyo Ceel Dheere ee gobolka Galgaduud
gebi ahaanba waxa uu madaxweynaha ku sheegay Fahad Yaasiin in uu xoog saarayo kaliya deegaanada isaga uu ka soo jeedo halka deegaanada kaleeto aysan wax dan ka gelin madaxweynena sidaas uu mudnayn ay tahay in Fahad Yaasiin uu ugu baaqay madaxweynaha in dadka iyo dhulka Soomaaliyeed ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gebi ahaantoodba ay u sugnaadaan ay u midaysnaadaan amaba ay u sinaadaan halka dagaalka inay tahay daacad lagu wajaho sidoo kalena sidaasina al-shabaab looga adkaan karo kaliya in hal waji loola dagaalamo ururka al-shabaab balse Fahad Yaasiin ayaa bartiisa Twitterka qoraal ku soo qoray uu ku bawaadinaya in sidoo kale dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab isagoo dhinaca kalena dhaliil iyo eedayn dhabarka ugu tuuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ahaatee dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab ayaa dawladda laba jibaartay oo dhinaca kale ururka al-shabaab ay iyagana soo qaadeen dagaalo rogaal celina oo ay ku qaadiyaan fariisimaha ay ku leeyihiin dawladda Federaalka Soomaaliya ee goobaha ee fogfog ee gobolada dalka sida galguduud iyo shabeellada dhexe iyadoo ay ugu soo horeysay ay ugu dambeysay saldhigii ciidan ee ay ku qaadeen awdhiig leh ciidamada militariga Soomaaliya ay ku qaadeen ururka al-shabaab iyadoo dhinaca kalena magaalada Muqdisho shalay uu ka dhacay qarax ay ku nafwaayeen 5 qof oo shacab Soomaaliyeed qaraxaasina uu ku dhacay wadada warshadaha iyo sidoo kale haanta dheer iyo afgooy u dhaxaysa iyadoo halkaasina ay ku nafwaayeen 5 ruux oo shacab ah oo iska socday sidoo kalena wadada marayay hay'adaha amniga ayaan wali wax war ka soo saareen qaraxaasi ay ku dhinteen dadka rayidka ee waxba galabsan si kastaba ahaatee dawladda ayaa sheegtay in ay ka fogeysay ururka al-shabaab in caasimada sidoo kalena ay nabad tahay hase ahaatee wali waxa la maqlayaa joogta iyo sidoo kale qaraxyada ay geysanayaan ururka al-shabaab dhinaca kalena diyaarad xamuulka qaado oo ka soo kacday ee magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ku burburtay dawladka magaalada Muqdisho meel magaalada Muqdisho u jirto 24 kiiloomitir shalay marka ay saacadu ahayd galinkii dambe 5 iyo 43 daqiiqo ay gabi ahaanba hawada lagu waayay diyaaradii ka soo kacday ee magaalada Dhobley iyadoo halkaasi sidoo kale lagu waayay saacado kadibna la helay in ay diyaaradaasi hawada ka baxay sidoo kalena ay lumisay xiriirkii diyaaradaha raadeerkana uu hawada ka baxay iyadoo halkaasina cilad darteed ay ku timaaday shalay galinkii dambe sabtida la sheegay in diyaaradaasi ay cilad ku timaaday iyadoo markii dambe ay sheegeen qolada farsamada diyaaradda inay xaliyeen sida darteedna ay kusoo duushay iyadoo soo socotay magaalada Muqdisho waxayna gabi ahaan galinkii dambe ee shalay ku burburtay duleedka magaalada Muqdisho deegaanka Jazeera oo u jira magaalada Muqdisho 24 kiiloomitir si kastaba ha ahaatee dawladda hay'adda duulista hawada ee rayidka ee dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku geeriyoodeen 5 ruux ee gabi ahaanba saarnaa diyaaradaasi iyadoo baaritaan ay socdaan ay tiri sidii lagu ogaan lahaa cilada keentay in diyaaradaasi ay burburto ama ay ku nafwaayaan dad rayid ah ila ka madax banaan ayaa sheegay in dadka ku dhintay 5 ruux ay ahaayeen dadkiina iyagoo dadkaasina ay ka soo kaceen magaalada Muqdisho kalena ay ka shaqeynayaan gargaarka degdega ama gargaarka bini'aadanimo diyaaradan ayaa diyaarada sidoo kalena qaaday gargaarka degdega iyo sidoo kale xaaladaha bini'aadanimo goobaha ay ka jiraan ay si daaragti ah u tagtaa inta badan magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah magaalada xuduud la leh dalka Kenya iyadoo diyaaradaha ugu badan ee xaalada bini'aadanimo iyo sidoo kale kuwa gargaarka degdegana ay magaaladaasi ka dagaan inta badan daawadayaal wixii ka soo kordho ee diyaaradaasi shilka iyo waxyaabaha sababay iyo sidoo kale hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxa ay warar ka soo saartay dhimashada dadkaasi la xaqiijiyay waxaan kula wadaagi doonaa halkan haddii aad tahay markii ugu horeysay ee soo booqata YouTube Amir Suleyman waxa ka codsanaa inaad subscribe iyo channelka muuqaalka like iyo share garay gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad mar kale u mahadsantahay